رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وموضوع الطاقات الشبابية حلقة سي سدحاد حلقة سدحاد دقيقة غير وعادي يركوبا هدي ربي سبحانه وتعالى ويدمه وحنا واحد لدونا مشجعات الطاقات الشبابية دورة ريمود وأودها ضدك dhalinyarada dhiirigelin u noqon kara arrimaha waxa ugu horeeya ضبط السيكولوجية الشخصية qofka dhalinyarada ahi si awoodiisu ay dhiirigelin u hesho oo hawlo fara badan ama kaalin culus oo dhalinyaranimadiisa uu ku gudan karo oo hawlo ugu qabsado wuxuu baahan yahay nafsiyaadkiisu inay xasiloon yihiin inay psychologiyadiisu inay tahay psychologiya mundabita arinta labaad aan xalaqadan ugu hadli doonana waxay noqon doontaa arin kale oo ah xusnul alaaqati ma'a Allah waxyaabaha keeni kara qofka dhalinyarada ah inuu awoodiisa uu ka faa'iideysto oo awoodihiisu ay wax gal noqdaan oo awoodiisu uu dhiirigelin u helo waxa kamid Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xiriir fiican u leeyahay labada qodob ayaan xalaqadan ugu hadli doonaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo qodobka koowaad oo ah ضبط السيكولوجية الشخصية saddex arrimood ayaan mulaaxadaynaya oo marmarka qaar dadka dhalinyarada ah laga yaabo in ay ku noqdaan siyaabaha qaar inay niyad jabiyaan oo awoodahoodii yani hadii ay fahmi waayaan laga yaabo inay awoodoodii inay niyad jab ku yimaado arinta koowaad waxa weeye qofkaaga dhalinyarada ah ee raba inuu dhalinyaranimadiisa shaqo adag ku qabsado hawlo fara badan uu ku qabsado xalaqaadkeenii hore ayaanu ku soo sheegnay waxyaabihii awooda dadka dhalinyarada muujin lahaa ama awoodooda dhalinyaranimo hadii ay soo baxdo qiimo u yeeli lahaay waxa kamid ah siyaabaha psychologiyada ay u nidaamsanaan karto alla tantadhir shukran min ahad inaadan qofnaba waa mahadsan tahay inaadan ka sugin waxay yiraahdaan culimada bulshadu qofka raadinaya inay dadku u mahad celiyaan waa qof raadinaya sababihii uu ku fashilmi lahaa buu raadinaya anta xaqan hadii aad bini aadamka waa mahadsan tahay hadii aad ka sugto waad fashilmaysaa limaada inta badan bini aadamka waa mahadsan tahay inay ku yiraahdaan يعني إنك كلا كلا أنت آد بيو أذك تحي واحد ملاحظة يسا إلهي سبحانه وتعالى مركو بني آدم كهد لاي سيدا الرب سبحانه وتعالى وبني آدم كوه الله إلهي سبحانه وتعالى عليه قتل الإنسان ما أكفره بني آدم كو لحنا ذيها كل عليه محوك يعني قال لي ما بدنا يعني إلهي سبحانه وتعالى يعني حسويدينا يا وحن محوك كسم يسيها بني آدم كان gaalnimada badan oo meel ka dhacyada badan oo mahad celinta yar oo nicmo kasto la siiyo yaani uga jawaabaya macsida iyo gaalnimada iyo kufriga uga jawaabaya marka bini aadamkii Allah subhanahu wa ta'ala markuu isagoo abuurtay يعني ما حدش يعني الله سبحانه وتعالى ku tilmaamay bini aadam gaalnimo badan oo يعني galadaha iyo nicmooyinka loo galo aan ka mahad celino ku gaalooba hadaa adigu hawl yar oo qabatay caawimaad yar oo siisay iyo aqliyad yar oo aad ku soo kordhisay hadaa uga raadinayso waa mahadsantahay inay ku yiraahdaan intaad ka heli doonta aad bay u yartahay marka wad niyad jabi doonta isba yani ihbaat baa kugu dhici doona ikhfaaq iyo fashil baad la kulmi doonta marka bini aadamka waa mahadsantahay wax badan ha ka filanin
إلهي سبحانه وتعالى مركل وحنا نوت المامية يعني وقليل من عبادي الشكور إن ير يا الدوم مذي يعني إلهي سبحانه وتعالى عليه بني آدم كانوا أنا بورت إن يربى إيه مهد علنيس إن يربى يعني ثقافة إيه وأخلاق ذا مهد علنت إن يربى تقانا واحد بدن رب سبحانه وتعالى القرآن كعلنا ولكن أكثر الناس لا يشكرون أنت كين تود بدني من مهد عليان ونعمية قلدي وناك لو قلي كما مهد عليان مركا يعني حدي يعني آذن كتنازلي كرين بني آدم كائنات مهد علين كسكتو سيكولوجيا ده هذا مركز تمن نظام سنانا يسوع مركب مرول بإحباط يشيع شوية عب شوية قرعني يو ماذا حنون إن الله نور تظهر بدن أتقبسون ويسوع أيوم بيو بدن طيب قضية ده لبعض السيكولوجيا ده هذا خصيصة وحاول يقف كده نيرده يعني ألا يتأثر بنقد المثبطين هذا نقطة قف هنكي سرّيهم ودلال بدن وهالأبور بدن وملها قار كفكرة وغايدي سي تارجت كيسو يعني وفوق هاي تتكين تودا بدني وحي كوار كيان قف والن يقف قاب درني يقف كفير سلهين يكوار كيان لهذا علماء وحيد هذا علو الهمة من فنون الجنون يعني قف كانوا هنكي سرّيهم ونوع كمذا نوعية والدة معناه على وجه ذا دتك أنتوا ذا بدن يا وحي كوار كياننا تهي محل ذا قف والن حدي مرول بميلها كيف كريسة ميلها دتكو كيف كريان يعني أي كيف وقتها وحبها قبنا يسا وحبها دتكو أي سنة بدن أنا وقت السنين هدي أي نقطان دتك إنير ayaa leh akhlaaqda ah dadkeena dhiirigeliyaan intooda badan way ku naqdinayaan madwaalanta waxa say ugu fikirtay majinba ku sita waxa aday maxaa ku diray danaha shakhsiga ma maxaa dana kale iyo yani arin bulshada ka hadlaysa arin bulshada ka hadli kartaa day qof yani isagu ma noolaa laba tahay marka dadka intooda badan waa musabbitin معها مشجعين معها أو يعني كم دير جلنا يعني كان أنا يعني أوران كرتو محوها إيش أنا في عالمي وهذا سبيلي يعني أنا هو حوي عالم أن تدني ذي ذي قواعد ذي رولز كان قصة أنا قانون كجرا وده ذي دنا نيجي عد هاي أنا أوران كرتو لكن هذه هذا عدي فرت قصة في غلابة هذه يكون يجبسو حوي أوودها جا لين يرنمو dhiirigelin ma helayaan aad hore ugu sii socon karto arinta saddexaad waxa weeye alla tatahayya min an-nuqtati al-bidaiya mar walba aad rabto hawl adag inaad qabsato shaqo adag iyo hal abuur adag inaad ku talaabsato oo awoodaada dhalinyaranimo aad tijaabiso inaadan ka cabsanin bilowda waxay yiraahdaan waa kinika shaacirka lahaa man yatahayyab su'ud al-jibali ya'ish abada ad-dahr bayna al-hufari يعني قفكي مرة بكهي بيستو كعب صدا بورته انتو هوس استاغو انو كره او بورته وكل دقائق انتو بورته كرو فيريو ويراد الله متنبل كوري كرا تاسنا ولغي غددك بورته كهوسيا ايون بو كنولادا waxay kala yiraahdaan yani culimada bulshadu hawl walba oo qofka bini aadamka uu qabanayo bilowga ayaa ugu dhib badan marka waxay yiraahdaan ibda oo tawakkal ala allah bilow hawsha adag iyo kaalintaada adag iyo mashruucaada adag iyo halabuurkaaga adag waxa isku daydaa bilowga hore inaad dhaqaajiso oo aadan bilaabitaanka aadan ka heebaysanin waxa weeye marka wixii ka dambeeya يعني تجد عون الله إلهي سبحانه وتعالى عن قبنا ينتكو قوليسته أيوم بيو بدنتها وتاكله وأي رادان همة الرجال تسير الجبال واحد كفكر يسوى ما هلابوركا ما عقلية هذا أما كالنتا أدوني سو أرمها بلشدة ذينا تكجودته آت كأولوس هنكا قد نمي كحرنتهاي هنكا دتكنا وحالة ده بورها با ودلدليا marka qadiyada la xiriirta dabdi psychology waxaan ku koobaya bini aadamka waad mahadsantahay ka sugan naqdintooda iyo ceebaynta iyo siyaabaha ay afkaartaada aragtidaada ay u mucaaradayaanna ha ku saamoobin oo inay ku jiifiso marnaba yani sabab kugu noqonin iyo arinta saddexaad oo ah yani hawlaha adag ee dhalinyaranimo ee ku hor yaala آية شخصية هذا وقبصنا يسمى البلشة هذا وقبنا يسو بالله وأقول بدن بالله إلهنا سبحانه وتعالى تلساره بالله وهريه كهي بيسننه مرة البقفة بالله وكعر عردا هنقولن قدم كي قال بعد حلقة أن ربعنا وحر كتل ما وحوي سعد لرجالين وجوه شو أودها قدر يرنمه وأذكرنت هذا وجوده توي وحقبت كوجي شان أحسن علاقتك بالله جل جلاله إلهي سبحانه وتعالى حريرك كالد حياها جاجي وحاله بقى
qofka bini aadamka ah meel buu ka go'an yahay inta isaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan isku fiicnayn inta xiriirka Ilaahay ka dhaxeeyo wuxuu yahay meel baad la'aanaysa fikirkaagu suma ka qabanayo halabuurkaagu suma ka dhalaayo awoodaadu suma ka tarayso yaani maxay ii sheeg suxbadaada iyo calaaqaadka bini aadamku kuma hagaagayaan sida awood waxa weeye meel iyo awood adiga ka weyn ayun baa kugu dhagan lidaalika yiraahdaan yaani culimada muslimiintu qofka nolosha ku guuleysta si liibaanteeda uu dareemayana ugu guuleysan karaahi waa qofka Allah subhanahu wa ta'ala uu xiriir fiican uu kala dhaxeeyo oo Rabbi subhanahu wa ta'ala yaani maxay sheegay subhanahu wa ta'ala uu raali ka yahay kaas baa Rabbi subhanahu wa ta'ala marna jidka u fududeeya marna Rabbi subhanahu wa ta'ala uu tawfiiqda iyo wadada saxda ah yaani uu waafajiya marna Rabbi subhanahu wa ta'ala uu gargaarkiisa iyo garabgal oo Rabbi subhanahu wa ta'ala la garab istaaga saddex arrimood baan marka qodobkaasna ku koobay ah inaad xiriirka Ilaahay kala dhaxeeyo aad hagaajiso waa qodobka koowaad istaqim kama umirt fa inna dhalika tariiquk ila auni Ilaahi jalla jalaluhu waxaad isku daydaa inaad sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toosno ku yirina u toosnaato istiqaamada culimadu waxay ku soo koobaan laba arrimood oo ah marna inaad waajibaadka Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku faray aad ku toosnaato marna wixii Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka xaraanimeeyay inaad ka harto faraha kala baxdo arintaas baa istiqaamo la yiraahdo waxay yiraahdaan adoonku markuu toosnaado oo waajibaadkiisa sharciga ah Rabbi saarana uu guto yaani muharramaadkii iyo manhiyaadkii Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka xaraanimeeyay oo ka dhowrsado wuxuu helaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala gargaarkiisa arin walba ka xiranta waxa laga furaa oo albaab laga siiyaa meel aanu usan ka fulanaynin masalada istiqaamadu waxay la macno tahay taqwada iyo la kacabsiga waka Ilaahay subhanahu wa ta'ala law man yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib qofka haduu Ilaahay ka cabsado oo Rabbi subhanahu wa ta'ala wadaysu ku toosnaado istiqaamo u leeyahay markay arana ka xiranto meel aanu ka fulanayn ayaa waxa weeye furaha looga soo dhiibaa oo albaab looga jeexaa arinta labaad ee inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala calaaqadiisa aad hagaajiso ku jirta waxa weeye يعني اخضع لله بتمام العبوديه يعني waxa isku daydaa inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar walba u muujiso awoodahaaga inaad guruur ka yarayso oo kibir ka yarayso oo takabbur ka yarayso tantaaga maxay aad yarayso يعني inaad noqoto adoon Ilaahay subhanahu wa ta'ala u jilcsan adoonnimadiisana qiran Ilaahay subhanahu wa ta'ala jalaaladiisa iyo haybadiisa iyo jabaruudkiisa u qiran taa waxay yiraahdaan culimadu waxay fududeynaysaa Rabbi subhanahu wa ta'ala yani in uu hawlahaaga inuu fududeeyo Rabbi subhanahu wa ta'ala sucuubaadka iyo cusriga iyo culaysyada iyo caqabadaha iyo taxdiyaadka iyo challengeska halaburada ka hor imaanaya in Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ka horeejiyo xadiiska Nabi sallallahu alayhi wasallam waa kiyaha yani qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u tawaaduco Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu dabciyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu dhuldhiga rafa'ahu Allah Ilaahay baa dalacsiye marka dhagax weyn ama darbi weyn ka boodi lahayd ayaa Rabbi subhanahu wa ta'ala Ilaahay uu ka bootinaya marka adigu Ilaahay aad u jilicsan tahay culimada zuhdiguna waxay yiraahdaan man tadallala lillahi dhalla lahu al-ibad wa dhallat lahu as-si'ab qofka soo Ilaahay isu duleeya oo Ilaahay isu dhuldhiga oo Rabbi subhanahu wa ta'ala isu jilciyo adoonnimadiisa Ilaahay u muujiya adoomada ayaa isagana loo duleeya saacabta iyo culaysyada wax walbo adagna isaga waxa weeye way u fududaadaan marka masalada al-khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala waa mid kamid ah waxyaabaha dhiiri gelinaya awoodaada waxa dareemi doontaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala adigu u jilicsan tahay oo Rabbi subhanahu wa ta'ala yaani adoonnimadaada aad u muujinayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoon u tahay yaani mar walba aad qiran tahay oo nafsadaada kibirka iyo takabburka iyo istinkaafka iyo santaaga aad kala dagaalanto waxa dareemi doontaa adigana in awood aadan u jeedin marmarka qaar ay hore ku riixi doonto arinta ugu dambeysana waa ahsan tawakkulaka ala Allah tawaffa yani talasharashada iyo isku halaynta Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku halaynayso badi adna tawfiiqda helaysayo waa lagu waafajinaya yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala wakiilaha alaysa Allahu bikaafin 'abda yani adoonka Ilaahay isku halaynaya oo Rabbi subhanahu wa ta'ala ku tashanaya Ilaahay miyaan ku filnayn Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku filan yahay oo Rabbi subhanahu wa ta'ala tawfiiqda iyo dariiqa saxda ayaa Rabbi subhanahu wa ta'ala u waafajiya marka saddexda mas'alo waxa waaye midda istiqaamadu waxa la yiraahdaa يعني معيده إلهي بالغو هلا إلهي سبحانه وتعالى قرب استاغيسا مسألة خضوع iyo تواضعنا waxa lagu helaa التيسير iyo fududeyn baa lagu helaa مسألة حسن التوكل كان توفيق ذا lagu helaa xalaqada halkaas baan ku gabangabeynaya والله سبحانه وتعالى أولى وأعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما